annagu badanaan leenahay ku taagnaan mayna maanta oo dhan ee naga baydh alla inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilmahan ayuu hayba ii dhalanaya imikay ii dhacatay imikuu man helay fursadaydii naanaga hadalka laha nagu soo celinay baxo imkana cunto kala kari oo qacanta fudaynamadii baa taagane baga bahaliyo dusha madoole inta ay ka badan ma kula rabaa waliba kaama harayo hooyo naagtu maxay kugu samaysayna hooyo cuntadii ba milixda ku badiso aday eeda ku saarisay been ka sheegaysay hooyo naagtan weligeedba beenta way taqaanaa maalmahanba cuntada mad cunayna saliid iyo milixda way ku badinaysay dhaqasho gurina male cuntana maba taqaana naagtu hooyo waxaad ka sheegaysaaba waa run naagtan Allah inaga furdaamiyo waa mucjisay Ilaahay noo soo diray noloshan baas waan dhibsadayba تلو حنان محاكو داعي حنان محاكو هلي حنان مينا كل هلين إلى هذا القالي حاشا المدى هذا قوي برسي محاكا احنا هاتشي waxbaygu ma dhicin imikana banaan cashada ku keenay والله واياب كل يوم حكا سعودان وقرم مايو حنان نو استاس الرد كل شيء ميسو هو يحقي دينا وحنبا كجرا بس إلهي خير كدي maxaan u sheegay imika waa kaase imika isna sidiisii ugu oran doona maanan ku oran reerkaygii hooyadii soo dhaweyso isagoon waxba iga celinayn anuu iska amsalay qaatintiisina buuqigu sii furi lahaa حفصة hee maxaa xanaan ku dhacay waxay kasbataa ku dhacay naakuma maqlay maxaa tiri anigu ma naagtaadan ka shaqeeyaa maxaan ka garanayaa waxa ku dhacay war noo banay wadada waxay ummadda wada deeqdoonaysaa wallahi waa cajiib maadaa dhadhowba wax badan baa weliba ku dhimanay yaa isgaadhay bahaliyo dusha madowle naaya masiibo maxaad ku samaysatay waata ooyeysee iyadaa soo doonatay ma aha hawshaydii baan ka qabsaday wax badan baa u dhiman weliba ha ka gurato waa taase haye waaye fariid baa tahe bartaa kaga hay ka jara naagtana imikana waxaad samaysaa hooyaa ku yeedhaysay orodoo u tag waadigaa ka jartaye haye xanaan maxaa ku helay maxaad la ooyeysaa samaradaada maxaa qooyey waalinkaartan iyo cuqubadani meel igaga dhacday ma garanayo hooyaa igu tiri cashada kari kijadan soo galay cashadii waan kariyey waan baxay xabsa ay soo daba weydaaratay cashadii markaan qaadeen hooyo u geeyeyna inta igu tuftay cashadii bay igu tiri maxaad milixda ugu badisay markaan u sheegan kuuri hooyo inantaada xabsaa ku badisoo ku dartayna way aamini weydo markaasay igu shubtay sharaabkeedii waan ku dareemi karaa wallaahi walaalo maanta oo dhan qof jikada ku jira in sidaa loo galo laakiin xanaan ها دنيا مياناد هيسن ميل دانتا حنان dadkan waad iskaga tagi lahayd be walaalo xagee baan aadaa kal macna waan jecelahay noloshaydii horena asaga dartii baan u soo baabiyey edidayna asaga dartii bay soo eriday imikana meelay banaanon aadaa ma jirto baashin xuna dusha madoole ilaa waxay la soo taagantay ilaa imika meelay tagta ma haysato show haddaba walaal ilaahay ku fudaydiyo anu waxaan ku sameeyay garan maaye haddii aan ku caawin karaayo bir hore ayaan ku caawin lahaa bal eeg bahalkan xuna doqonka barta way fadhiyo saasuu waliba istirax ku yahay TikTok ku isticmaalaya kii ka yaraana hantidii iyo lacagtii iyo shirkadii aan doonayay bay isaga haysta sug bal waxaan xuna doqonka aan la hadlo wuxuu sheegay Mustafa qalbi safar qalbi waxba ku tusinayaa bal eeg Soomaali wuu xalqad dhamac u soo dhigay idagaysa qalbi waxaan wax weyn maaha wax ka muhiimsan ma ku sheegayaa
haye maxaa jira ii sheeg هاي قلبي لكن سيدنا وحو ضاي حل maaha waayo xafadiin waxay ku aragtaa qof yar oo caananuuga oo casiira oo waxba maamuli karin oo qeyrul masuula wakaasoo kii ka yaraana isaga maamulkii iyo shirkadii iyo hawshii iyo wax walba gacanta ku haya weeyadaana isaga ka jeceshay waxay kaaga jeceshay wax kala maahine waxa la moodaa inuu ka masuulsan yahay markaas sidan isku dhaam malaha sidaan ma aha qalbi waa sidaan ku sheegay qalbi hadalkaygana meel ku qoro imikada hadad hooyada u tagtid ood ku tiraahdo hooyo shirkadii baan tagayaa dalcar eeg waxay ku tiraahdo markaasaani xal maahine meel iska soo saar oo saan wax ka bedel oo noqon nin jira oo adag oo lagu tashto haye waaye qalbi hadday sidaa tahay hooyanaan u tagay u sheegaya kabahaygii meeye yaa xidhay talow gurigan baas si xaggaa horaa la geeyey bal sugaan soo eege allah oo bahashii xumayd baa kabahaygii xidhan bee bahashan doqontaa kabahayga kala soo baxee naayaahe kabahayga maxaa kuu xidhay waa kabahani waxaad ka sheekaynaysa garan maaye kabaha bartaasan ka soo xidhay waan shaqaysanayga la tag muranka naawaa bilaa shaqee kabahayga noo bixinta ku shaqaysa daaradii ku xadhad naga uskageysaha noodhan annaga waa shaqaysanaya bow weliba annagay noo bobowleedaynaa kabahayagu adigay kaa qiimo badan yihiin waa goormay kaba qiimo yeesheen oo bilaadanka ka qiimo bateen kibirkayga la tagdaan kaa shaqayste isugaan kuu socdaya talow tiire maanta maxaa ku dhacay annaga hanaga jeejeedsana noo bixi kabahayaga naya xanaanayna tir maxaad weydiinaysaa u qumeeysantaa saa uga eegaysaa al banaan ka gaadhintaan isqabsan hooyo inantaada anigu xukumaan sameynay iyaday gardaraysanaysaa hooy bahashan dusha madowle waa beenteeda kabahayga cusbaabay ku shaqaynaysaayo noo saar baan kula carkaalayga saar bayna tiri hooyo sugbal hooyo inanta yar baa gardaranoo khaldan anaana xag sare ka soo arkayay wadha shaqaynaysay kibir uu la timid nayaa taada yari maalin dhawada duniya ay sheegtay inaad bannaanka in yar la taagneed maantana dumaashidaabaa laga hayaa waryaa mase hooynantiina yar waad arkaysaa in yar bannaanka la taagneed qacan bira ku qabo inaan yaraa naagal guriga anagana sheegin wasakhdii inta kaa maqnaaba kibirtee kii kaa weynaan waxba kaa qaban waay tan bahasha xumayda namiimiyaha ahayd naayaa yari bahal iyo beenalayda ayaa namiimiyaha ay 10 wajile waxaan ku weydiiyey maxaa dhacay in walaal kugu sameeyey annaga hana walaalsanina maxaad hooyada inoogu dirtaa fajida nooga daba laaqday bahal iyo maska faj nooceeye walaal naawaad garanaysaa fajidan ka hadlaya maxaad iskaga dhigaysaa naagaan waxba ogeyn duniyay maanaad bilowday inaad iga daba baxdeed hooyo igu dirto waa hadda inoo bilowtay adkayso alla waa aniga fashilmo naagtii rinooy ogaatay maxaan sameeyaa bal sugan soo weydiiyey islaantii maxay tayar u sheegtayna hooyo maxaad inanta yar iigu dirtay waa tanii timadu ii qabsato igu tiraada hooyo adaa ii sheegay hooy ismaan lahayn u sheegay anuu xanaaqsan buu hadalka iga soo fakaday iminkana waa inay waxbaa ka soo qaadin haye bal waayahay hooyo allah waa tantiiye bal sugi islaanta hadala maalaa yacni yaan iskaga idhaahde sanay u moodinaan anugu ku soo diray laakiin hooye waxaan ku weydiiyey hee hooyo hooye waad og tahay soo ma aha anigu inaanan weligay jeclayn inaan xabso dhibo talow qolkaya ka hadlaya oo waa tii iska dheerayde talow mar labaad bay hooyo igu diraysaa may hooyo xaasha wanogaya xabsida inaad jeceshaad ka soo qatay walaasha kaa yar hooye xabse ma jecliin ay dhibsato mana jecliin aan wax ka sheego sidoo kale ma jecliin aan been ka sheego hadal ay tiri amba waxay samaysay ilaa sheego waayo xabsi waa walaasho iga yar adduunkan aan ugu jecelahay haa hooyo xabse adigu waxba igama sheegtida waan ogahay adigu maada waxba sheegaba hooye xabsi waxay moodaysaa ilaan qalad ka galay mana garanayo waxaan ku sameeyo laakiinse qalad kasta ila timaada wax kasta iga tiraahdo waan iskaga dulqaadanaya waayo waa walaasho iga yeero hooye adiguna waad ogtahay dee ilaanan waxba kuu sheegin soo maaha
allah oo waxaan moodayay gabadhan xunay baastaradiina iga daba baxday laakiin iyadu igamay daba bixin iska daawan iska deenayaa ها هوي دنيا وانا ogahay inaad tahay qof wanaagsan waanan ku ogahay maamo haye waayay hooyo khayr bay noqon doontaa walaal duniyo subax wanaagsan iska waran subax lamida xabsa waan fiicanahay walaal iga raali noqo walaal duniyo waan kugu khaldamay waan ku tuhmay walaashayga yar ayaa tahay waxa silan kuu qoro waa habeenkii xalay ahaayo tagay adduunka adaan kaa eegta adaanan kuugu jecelahay walaal waan ogahay walaale waan kugu khaldamay iga raali ahow haye waayahay walaashayga yaray hooyo oo kuu baahnaa ma mashquul baatay maya hooyo maca mustafa soo dhawow haye hooyo macay ii waran hooyo mustafa maanta maxaad waday hooyo wax raba inaan kuu sheegana shirkadda tago oon booskayga buuxiyo maamulkana la wareego yaa shirkada hooyo sadiiq qurbaa ku noqonaya waxay shirkadii waxaad ka sheegaynaysaa kumaan fahmin oo haddaan qurbaha ku maqnaay haddaan joogo maana shirkadda qayb ku lahayn maya hooye waa adiga dalka inta badan ka maqan ee walaalkaabaa maamula haddaba anuu meelna uma noqonay meelna uma socdo sababtoo iminka xaas baa leeyay oo shirkaddaa rabaa bal waaye hooye khayr bay noqon insha allah arrinkaa waynu ka tashay innagoo dhan yaa xataa talada kala mac baa lii weydiinay wixii istaal sheegsay haye waaye hooyo maxay ku tiri hooyo wallahi waxaan malaynaya wax walba saa sheegsiin oo dhacayaan ha u malaynin waa hubaal adiga xaqaaga dhacsan waayeyna mari laakiin wax la iskaga hadhaya maaha waana dhacsan xaqayga ina mari والله قلبي مصطفى ما قرناي بريهان دبي لالوغا aad iyo tibcaan man dareemaya waxa laga yaabaa inaan cunto diiday dhakhtar ma ku geeyay qalbi may qalbi waa caadi waan caafimaadaya waxa laga yaabaa inay ciladii roo caloosha ay jirto hay way hooyo ii waran maxaa kanaad fadhiday hooyo aad baan xanuunsanayay maanta maalmahanba waa leeyahay oo maxaa ku haysto hooyo hooyo ma garanayo quunbaa saa ii soo qaad wata imika lay qabtay yalaalugiya matagunbay qabanayaan maasha allah hooyo uur baad leedahay hooyo uur maxaya ma fahmin maasha allah hooyo uur baad leedahay matag iyo walacani waa astaamaha uurka adiguna ina yar baa taho anaa hooyo wax soo dhashay ahe hooyo ma isbaadhay may hooyo haye waaye hooyo oroday soo baadho farmasiigana tagoo tastiga soo qaad haye hooyo hooyo ii waran waa khayr hooyo hooyo istaayl bay iga xanuunsanaysa meelahan bay marmarisay haa hooyo waa runoo waan ogahayo si soo baadh baan ku idho imika iyadan xaggaa u fadhiyan jawaab ka sugayaa hooyo maasha allah hooyo hee hooyo maxaad ku garatayna hooyo qosolkaagii farxadda wejigaa ka muuqataa ayaan ka arkay jawaabta maasha allah wiilkayga curadeed wiil baa loo sidaa hambalyo hooyo khayr sheega maanta maxaa jira ilmahan ay ii wahay baa ii dhalanaya hambalyo hooyo khayr sheega maanta maxaa jira ilmahan ay ii wahay baa ii dhalanaya imikay ii dhacatay imikuuman helay fursadaydii maadaamaan u dhalay ilmihii koowaad reerkan waa inaan maamulkii hantida kala wareegaa ninkaa iyo naagta alla ba'ayey matii qumayad ahayd baa iminkana uur igu yeelatay iminkii reerkana buuq igu furayaana ilaahay sahlo walaal hambalyo adiguna walaal mustafa hambalyo aansinda walaala idinkuna ilaahay ubad qeyr qaba hadishiyo hooyo maanta waa maalin khayr leh orodoo shaah iyo sharaab iyo salool noo keen farxaddeeda lama soo koobi karee haye hooyo
حنان hee duniya huuna ii waran khayre shax aniga igu daryadu karinaysayna istaahil baa uur yeelato islaanta ay ku tiraaday casariyin oo kare farxad aan dabaaldegni yaa oo fursad weyn baa soo baxday waa inaan gabadhan u diiwaan geliyaa saacadda laga bilaabo madaleysi leh tahay duniyo maxaad ka fikiraysaa waxaan ka fikiraya ilmaha guriga ku soo biray maasha Allah istaahil iyo Mustafa u faraxsanahay haa amba sidoo kale waxaan weydiiyey heshiiskii soo saxeexteen oo maxaa ku dhacay waxay qeyreen mas'uuliyadda inta leh hooyo kalmac isugan kugu soo celiyay hooyo waxaan rabaa inaan kuu sheego walaalkaa baan doonaya inuu kula shaqeeyo waa caadi hooyo soo walaalkaygi weyn maaha dee igala shaqeeyo waa man u baahna qof ila shaqeeye maantadan ba howlbaaba iga dayacamtee maasha Allah haye waaye hooyo hambalay walaal istaahilada ur leedahay waan maqlaye haye waan mahadsan tahay walaalo ii waran hooyo sidee dareemaysaa matagii wixii makaa kala yaraadeen hooyo waxa laaliyo waxaan cunaba ma garanaya naftaydu wax yaroo dhandhanaan ba iska doonaysaa hooyo wax kasta jeceshahay dalbo waa lagu keenayaa sug xanaan aan u yaadhe xanaan hee hooyo istaahil cuntadii way ka soo taaganta way walacsantee orodoo dukaanka tago xamar iyo lindhanaan ka soo qaad oo dilac bilaash uga gaadhsii haye waayahay hooyo haddaba hooyo aniguna waan daalanahay saanuma tegay buu beerku i xanuunayay waan iska sii jiibsanayaa haye hooyo orodoo iskana soo fadhiga faraha badan iska ilaaliyo iina jiibso haye hooyo waa markaygii haddaba jaaniskan waa inaan ka faa'iidaystaa hooyo hooyo xanaan waa tii guurka horraysaye iminkana istaahil waa tan uurka hor qaadaye talow maxaa khaldan inantuma madhalaysbaa maye hooyo khayr bay noqon insha Allah garamayna hooyo waa amar alle haa waa runta haye waayay hooyo waniga imka fustadii raxo islaanta shika ku beeray haddaba weelan xanaan u tagaa oona ka soo dhaadhiciya ila reerku ka aaminsan yahan inay tahay madhalays xanaan hee walaalo ii waran see tahayna waan fiicanahay xanaan hee walaal maxaa jira kaalay miyaan laga qurux badnaynaa qeyrkaayo la dhandhanaan u kariso xaggaada lagaaga karin lahaa si adigu majaariyad baa tahay walaalo wallaahi ma garan karo hooyo waxay tidhaahdeen ma diidi karo soo maaha teeda kale ma qof ima ku saadal celiyaa waa ceebe horta ma ogtii la reerku iskaa weydiinayaan istaahil markay uurka qaadiyo oo isleeyihiin xanaan maxay u dhali laadahay mamadhalaysbaa walaalo wallaahi anigu ma garanayo awlaadu ilaahay bixiy maaniga gacanteeda ku jirtaa teeda kale marka aniga foosada igu sii ruuxayaan maxay ka ogeeyeen inay ciladu aniga tahay inay isaga tahay ileen hore waxba muu soo dhaline walaal wallaahi garan maaye laakiin sida dhaqanka marka inankii inantu waxbay isku dhali waayaan eedda inanta ayaa la saaraa walaal anigu ma garanayo waxaase awlaadana ilaahay baa haye dadku waxay sheegeen ha sheegaan iyaga u taalaaye duniyo hee istaahil walaal adiga gijadii ka yimid talow xanaantii cuntadii yaran may samaysay dhandhanaankii dhandhanaana na xaggani masaarsaneedu madaxu laba kala jikadan sharaab soo doonto waxaan maqlaa iyadoo leh ana ku soo horeeyay sidee uuriga hor qaadaa malaha waxaa may samaynine boowna waxay wax ka daranba way ka suurtoobaane cuntada yaanay sunka uga darin wax lagu sameeyeyna maan arkayne naaheedha maanta dhammaan ku sugaynaa gacan culus sida midda kale beerkaana dhex yaalay maanad noo samayn wax yara dhanaanaan kuu dirsanay walaalo anigu mishiin ma yihiye sugoo samir yeelo waa kaa dherigu dabka saarane miisadaa waxaad ka cuntaa intan aan uurka qaaday waan ku arkaaye qalbadaa ku jaban ood ka cuntee naa kumaan fahmini maxaad ka hadlaysaa idhegaysa haddabaan kuu faahfaahiye adiga oo sanadku dhowaad lagu qabo oo weliba guriga jooga ayaa weli uur qaadin aniga oo wax bil ka yarlay qabana uur baan qaaday markaa waan ku arkay inaad ka maseersan tahee waxba qiiqaa isku qarin walaalo ilaahay ka baqo awlaadda ilaahay baa dadka ku arsaaqoo bixiye waan ogahay ilaahay baa awlaadda bixiya laakiin sawma ogid ilaahay inuu dadka qaarna ka dhiga madhalays sida adigoo kale hooy iska waran alla inakii kalmac baa yimaade hooyo maanta war farxadan ku haya xagga soo fadhiiso hooyo maanta waa faraxsan tahay khayr sheeg
warka farxad leh muxuu yahay hooyo maanta ayay baan noqday maasha Allah hooyo ayay noqotay hooyo inakii Mustafa uur loo leeyahayo caawa wixii ka dambeeyay ayay baan noqonaya maasha Allah hooyo waa war farxad leh hooyo adigana waan ka sugayay inaad dhashid ilmo yar oo qurux badan adiga ku eeg haye hooyo insha Allah ilaahay wana awlaad haye khayr bay noqon doontaa haye hooyo imkan ka si kacayay suuligan galiyo iska maarnaa shaqadii ma kiimilay way noo yahay dhow haye hooyo quruxo iska nasoo shaqaad ka timaadee haye hooyo يورن حنان alla kalmac miyaa timid حنان ما أنت سمعت مرقسنت سنوات فكرة ساي يقفر حدا شاعل عنا وأوربا الذي قرق نبع الروح كسوكر دانه kalmac kumaan fahmin قلبي سيب ما أنت شوي كغير قلدنايا أنا واحد سيدي ما أنت وتحنان أوركو قادو الميه لبعض دو قرق كسوكر داي واحد سيديو كله سيدي ولا كلي واحد لو قلفتي أيام ما تنادق من الواحد لو قلفتين سيدي maya qalbi anaa sidii kale iskaga buuqsanaa oo iskaga fikirayay أيوة يا قلبي نفتح خير وشيك واحد بنا هجاج دون عليه كعوامك البيانكم مردي دياري haye waayahay waa meeshan masaxaya ka joog diraadkaaga ku sawirmay markaan dhameeyo maro anaguba danaan leenahay ku taagnaan mayna maanta oo dhan ee naga baydh alla inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun naga banee alla hooyistayl maxaad qabtaa alla hooyo maanaa noolba dhabarka muxogana xaasabsanida maxaad ii kala tuurtay alla walaalo maanaa ku ridayba waxaad ku siibatay biyaha tay dhalaana waniga kulaa ka joogay naanagaaba soo taagnayna ku arkayna maxaad been sheegaysaa hooyo saad moodaysay maaha anigu inanta maan ridin balse maxaan ka faa'iidayaa ridisteeda waxaad ka faa'iidaysaa maalmaha baan ku arkay inaad wejiga madaweynaysa miskiinta uurkeeda ka xun tahay waxaad doonaysaa in ilmaha kasoo rito saadoo kale ka ridma dhalays wax badan baan ka oran lahaa balse waxaad ii tahay waalid waxba ka oran maayo midna aan kuu sheegay anigu ilmaha gacanta kuma hayo aniga iyo wiilkaagana midka aan dhalayn ma ogid adigu ما تمي أيه هوي وريقة سو صعدة سامر قلت ما تقلق فريق وخالي أيه هوي أمر كايا جرا talo islaanta maanta kalmaa waatan degdeg ugu yeedhaysay maxay ka doonaysaa alla waa kan خير شيء هوي محناي waxaan ku wadi gabadhaad maanta wax sabaysi ma ogtahay maxay samayso hooyo maantana waxay isku dayday walaalka ilmihiisii doonaysa inay soo rido oo gabadhii bay dhulka ku tuurtay wax ma kuu sheegaa gabadha madhalayska haddaad jeceshaad adigu rabto gabadh wax ku dhashaan kuu guurinaya weliba hooyo inaan ahludiin oo akhlaaq loo xishood badan oo qurux badan ayaan kuu guurinayaa bal hooyo u kaadii shaydaanka iskana gabadheedu ma jeclaynaa kale la guursan maayo awlaadina ilaah baa hayaa gabadhan dhacdana laga yaaba inaan ogaan u ridin jecelkaygii bal aan wax soo ogaado malaa inankaygu u falayahay anuu hooyadii u aamini laayahay warkii horeba war soo dhaaf iminka heer waxaa la marayaa ilaa guriga gabadh kale la iigu keeno allah fikrad ayaan helay waa inaan sameeyaa waa ilaan xanaan u tagaa oon u dhiibaa foosto beena oon ku idhaahdaa been sheeg waayo midda koowaad hadday taladayda qaadato naagtii guriga lama keenaya midda labaadna haddii fashilanto iyadaa guriga laga saarayaa allayee iga fariidsan waxaan keenay fikrad ah hal dhagax laba shimbir ku dil iminkana waa ilaan tii u tago xanaan maxaa kugu dhacayna waxba walaalay maxaad haysay xanaan waan ku dareemi karayaa xaaladaad ku jirteeda dhibta ku haysataa balse waxaan doonayaa arrin kaloo soo korodhay ilaan kuu sheego maxay tahay walaal arrintaasi inkastaanu walaal ahayn war farxad leh balse iminka waxaan soo maqlay kalmaciyo hooyadiiyo wada sheekaysanaya oo maxay lahayd islaantu waxaan maqlahay islaantiyo ku lahayd kalmaal waxaan kuu doonayaa gabadh kale tan madhalaystaana iska fur ma
dhici kartee waxaa xanaana ila gudboon inaad xal degdega keentid oo walaal anigu maxal baan hayaa wadiga arkay xaaladayda waxaan ku odhan lahaa xanaane haddaad aniga taliya iga qaadanaysay inaad tirahdid uur baan leeyahay uura oo ma been baad igula talinaysaa inaan sheego